gudoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada madaxda iyo saraakiisha hay'adaha aan dawliga ahayn hay'adaha caalamiga ah saraakiisha ama madaxda hay'adda xuquuqul insaanka mas'uuliyiinta CPA bahda saxaafadda shaqaalaha wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimada kale halkan fadhida waxaan dhammaantiin idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal iyo marweyn sidaad ka warqabtaan wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaa la aasaasay 1992 waxaan runtii guud ahaan u igman tahay arrimaha la xiriira diinteena suuban wasaaraddu waxay ka kooban tahay ilaa 7 waaxood oo ugu horeyso waaxda fatwada waaxda maamulka iyo maaliyadda waaxda shaqada iyo shaqaalaha waaxda horumarinta iyo isku dubaridka muxaadaraadka haweenka waaxda madrasadaha iyo masaajidda waaxda cilmi baarista iyo waaxda qorsheynta laga soo bilaabo 2010 ilaa waqtigan aynu joogno muddadaasi oo wasiir ka ahaa wasaaradda Sheekh Khaliil guulihii ugu waaweynaa ee wasaaraddu gaadhay waxaa ka mid ahaa hirgelinta tartanka quraanka kariimka ah heer qaran taasoo ay ka qayb qaataan guud ahaan gobollada dalka hirgelinta idaacadda quraanka kariimka annagoo runtii la kaashanayna wasaaradda warfaafinta dhismaha ballaaran ay wasaaraddu ku jirto iyo masaajidka weyn taasoo sawirkii wasaaradda runtii wax badan ka tartay waxaa kaloo runtii guulaha ay wasaaradda gaadhay ka mid ah isku wadka culimada iyo isku hayntoodaba iyo in laga feejignaado guud ahaan khilaaf diini ah oo kala fogeeya bulshada sidoo kale wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay xiriir caalami ah la samayso qaar ka mid ah wasaaradaha kale ee caalamka sida wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Sacuudi Carabiya hay'adda awqaafta ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dalkaas Suudaan haddii aan u imaado xeerkan kufsiga iyo arrimaha jinsiga ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi dhawaan saxiixay xeerkan oo in muddo ah gacanta lagu hayay diyaarintiisa iyo doodiisaba waxaan ugu horeyn u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay waxaan sidoo kale u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ugu dambeyntii saxiixay xeerkan waxa iyana runtii la ilaawi karin labada gole ee baarlamaanka iyo guurtida doorkii ay ka qaateen waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa culimada wasaaradda diinta iyo awqaafta oo hormuud u yahay agaasimaha waaxda fatwada Sheekh Axmed Dembiil iyo culimadii kale oo iyaga runtii kaalin mug leh ka qaatay sidii looga saari lahaa qodobadii mugdiga ku jiray markii ay diyaarintiisu iyo doodiisuba socotay waxaan runtii wasaarad ahaan diyaar u nahay ballan qaadaynaa socodsiinta iyo hirgelinta iyo wacyigelinta xeerkaasi intaa kadib mudanayaal iyo marweyn waxaa maragma doonta ah in wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo civil society-gu u dhaxeeyay xayndaab iyo kala shaki hase yeeshee mabda ahaan madaxda wasaaraddu waxay aaminsan yihiin in guud ahaan waxyaalaha aad ka shaqaynaysaan sida ilaalinta haweenka iyo ka hortagga tacadiyada loo geysto ilaalinta ilmaha yar hooyada oo ilmaha naaska siisa muddo 2 sano ah inanta oo aan lagula kicin gudniin ama gudniinka fircooniga iyo guud ahaan arrimaha xuquuqul insaanka in qodobadaasi dhammaantood ay diinteena islaamka si cad u qeexday haddii wasaaradda doorkeeda ay ciyaarto idinkuna aanu idinka helno wada shaqayn joogto ah waxaan ku kalsoonahay in hadafka iyo yoolka aynu leenahay si wada jir aynu u gaari doono haddaba waxaanu si cad runtii u sheegaynaa in maanta laga bilaabo albaabadaydu idin furan yihiin wasaarad ahaan waxaanu ka qayb qaadan doonaa guud ahaan wacyigelinta iyo hirgelinta xeerkan waayo marnaba lama aqbali karo in la dhibaateeyo bulshadeena gaar ahaan kuwada jilicsan waxaanu jecelnahay in qodob kasta oo la xiriira diinteena suuban inaad kala soo xiriidhaan wasaaradda diinta iyo awqaafta si aanu u hubino waxay shareecada ka qabto isla markaasina aanu gacan idinku siino
hirgelinta barnaamijkaasi waxaad ka warqabtaan bishii February ee sanadkan aynu ku jirno waxay wasaaraddu soo saartay fatwo ku saabsan FGM-ka tusaale ahaan taasoo wasaaraddu runtii hawl badan ka gashay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa culimada dalka ee fikradaha kala duwan aaminsan si loo soo saaro go'aan meel mar ah haddaba waxaa nasiib darro ah in aanay jirin hay-ado ama ururo wasaaradda kala shaqeeyay soo saarista fatwadaasi marka laga reebo dalladda Nafis Network oo runtii halkan maanta uga mahadnaqayo ugu dambeyntii Allah subhanahu wa ta'ala mahad iska leh waxay wasaaraddu soo saartay go'aamo wax ku ool ah oo u hiilinaya hablaheena inkastoo ay jiraan ururo iyo hay-ado walaac ka muujiyay qodobka ugu horeeya ee fatwada laakiin wasaaraddu waxay aaminsan tahay haddii wada shaqayn hore ay jiri lahayd lagaba yaabo go'aamo lagu wada qanco inay soo bixi lahaayeen imikana waxay runtii wasaaraddu diyaar u tahay in walaacaasi talooyinka ay soo jeediyeen civil society ee ku saabsan qodobka ugu horeeya ee fatwada inay tixgeliso isla markaana dib ayaanu isugu yeeri doonaa culimada dalka waxaanan ku kalsoonahay in xal laga gaari doono guud ahaan arrimahaasi ugu dambeyntii waxaan runtii u mahadnaqayaa madaxda kala duwan ee soo ajiibtay kulankan wasaaradda runtii soo qabanqaabisay waxaan runtii ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan inaanu xoojino kulamada noocan oo kale ah iyo maxaan ku rahdaa wixii hadba soo kordha in laga wada hadlo gaar ahaan hadda arrintan taagan ee xeerka kufsiga iyo arrimaha jinsiga mar labaad aan ku noqdo runtii wasaaraddu hawl badan bay runtii ka geysatay saan hore uu sheegay guurtidu ilaa 5 kulan baanu kala yeelanay baarlamaanka sidaas oo kale talooyinka iyaga runtii way qaateen imikana haddii ay wax soo baxaan marka hawsha practical loo galo iyo marka theory laga hadlayo way kala duwan yihiin marka practical loo galo oo maxaan ku rahay xeerkii uu taaba galo waxa laga yaabaa waxba soo bixi doona baarlamaanka waxaynu u samaysanay in qodobadaas amendment lagu sameeyo baarlamaanka iyo dalkeena iyo hay'adaha maxaan ku rahay maxalliga dadka madaxda ka ah iyo ummadoo dhan wada muslim waxa runtii aynu isku wada waafaqsanahay wixii mabaadi ah ma principle ah cidna maxaan ku rahdaa ama hinmayno soo sidaa ma aha laakiin wixii farsamo ah ama qodobadaasi xeerka ka hor imanaya ama furuuca waxaan diyaar u nahay wasaaraddan si culimadu sheegeen inaanu ka caawino haddii aan lahayd baarlamaanka haddii aan lahayd maxaan ku rahdaa ururada kale haddii aan lahayd qolyooyinkan maxaan ku rahdaa qudaada ama maxkamadaha inaanu ka caawino si maxaan ku rahdaayay loo ilaaliyo inanteena si loo ilaaliyo maxaan ku rahdaayay dadkeena jilicsan sababtoo ah dhammaanteen waxayna wada deeqa wax khuseeya ama ku qotoma shariicada islaamka dastuurkeena waxa ku yaala wax kasta oo ka hor imanaya shariicada islaamka waa baadil waxba kama jiraan waynu wada waafaqsanahay haddaba haddii wixii la soo saaray uu maxaan ku rahdaa qof banaanka iska taago uu hor joogsado ama uu dhaleeceeyo ama maxaan ku rahdaayay sideeda wax dhaleeceeyo dadka aan doonayo in wax la qabto annagu wasaarad ahaan waxaan doonaynaa inaan doorkayaga ama roolkayaga guud ahaan wixii ku qotoma shariicada islaamka ee arrimaha bulshada qusay inaan doorkayaga ciyaarno cidna ama ahin mayno wixii markaa maxaan ku rahdaa intaa kadib ama aanu aragno maxaan ku rahdaa NGO ama ururo kale oo intaa wax ka doonteena maanta isla qaadano ka baxsan sameeya eedda waxaan filayaa lama wada laha eedda cid kaliya ma laha qofkii markaa waxa sameeyay baa eeddaas kale waxaan diyaar u nahay xafiisyadu way idin furan yihiin soo dhawaada xitaa waxaan idin ballan qaadaynaa haddaan wasaaradda diinta oo qabtan oo ku hadlaya magaca wasaaradda iyo magaca wasiirkaba xafiisyadu way idin furan yihiin ballan la'aan qoladiina hay-adaha waxaad attendance iyo ballan iyo email waxbaad ka sheekaysaan ballan la'aan baad u imanaysaa xafiiskayga